waxaa khadka si toos ah ugu jira Shaafici aw jaamac oo ku sugan degmada Carooley ee gobolka Sool. Shaafici marka hore ku soo dhawow shabakada wararka ee Godaalo News. Waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaankaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ka jira. Deegaankan joognana xaalad aad iyo aad u xun iyo deegaamada kale oo nagu dhowdhowda iyo garowgan ku jira iyo in la istifaaco cadawga la iska kiciyo. Waan gartay. Deegaanada khaatimo oo dhan dhammaan maanta waxaa ka taagan ololihii lagu diyaar garoobayo sidii looga difaaci lahaa cadawga kusoo duulay deegaamada. waxay noo jiraan afartamiyo kilomitir xagga degmada kale naga jiraan meelaha ay degan yihiin oo lagu sheegayo laakiin meel kasta ay joogaan ba waan nagu tegaynaa dadka walba waxay akhriyaan propaganda iyo waxyaabo tiro badan oo la sheegayo warbaahinta laga sheego cid la shirtay iyo cid u tagtay iyo cid rabta midna ma jirto aad iyo aad baa loo kacsan yahay waa laga diyaar garoobaya iyadana meel kastay joogaan waxaan doonaynaa inaan ka kicino deegaanada khaatimo ah tuulooyinka iyo degmada oo dhanna waxaa ka jira ololihii lagu diyaar garoobi lahaa xaaladahaasa ka jira hadda meesha dhawaan kooxo koofiyad baclayaal oo saxaafadda ka hadlay waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan ciidamada maamulkaasi beesha Isaaq isla markaana xoolay ku wareejinayeen nimankaasu dadka ma aha miyaa waayo nimankaasi hadda iyagay la socdeen oo meel kala yimaadeen ma aha odayaashii deegaanka ahaa ee xalaasha ahaa waa niman iyaga la socday waan gartay ciidamada khaatumo ee ku sugan jiidaha adigu joogtid oo Carooley iyo diyaar garowgooda waa sidee diyaar garowgooda aad buu fiican yahay waa diyaar gareysan yihiin adigu way sugayaan ciidamada maamulka Hargeysa ee dul degan degmada Taleex meel goobta ay ku sugan yihiin ma noo sheegi kartaa adeer waxay ku sugan yihiin magaalada way ku hareeraysan yihiin sida la sheegay adigu wadooyinka magaalada xaggan hoose ka galay ka joogaan wayna ku hareeraysan yihiin waxaana jirta haddeer 6 nin oo isku reer ah oo aan maqlay caawiyo inay ku baageen dagaal oo Hargeysa joogo beesha ay yihiin la garanayo madaxweynaha iyo kuwa xisbiyada iyo golayaasha waa dad isku reer ah 6 nin oo isku reer ah waxaan leeyahay dadku ha arkeen 6 nin oo isku reer ah dagaalka la caaminaya waxaan leeyahay dadku ha arkeen qadiyada isku raaceen iyo waxa ay doonayaan oo cid waliba ha aragto dagaalka laga soo qayb galo cidii u dhigataaba kaasina wuxuu ahaa Shaafici aw jaamac oo ku sugan degmada Carooley ee gobolka Sool aad baa u mahadsantahay Shaafici oo ku salaamaya sidoo kale assalaamu